guddoomiyihii yarba inuu qof Soomaali noo matalo inkastoo ay u dhaxaysid dadkoo dhan u degan xaafadda haddana si gaara ee annaga waxay noogu tahay farxad Soomaalinimada waxaan leeyahay oo rabaa inaan dhaho Rashid maanta meeshuu taagan yahay magaca iyo sharafta iyo booska uu ku fadhiyo annagoo dhanaa leh haddii Rashid uu leexdo ama xumaan ay timaado ilaahay uma keene annagoo dhanaa leh marka Soomaalida runta iskuma sheegto haddii aan isku xirnaan lahayn haddii Soomaalinimada aan ka fikiri lahayn baarlamaanka waxaa ku jiri lahaa intaasoo qof oo Soomaali ah laakiin maalintii doorashada la gaaro waxay qofba wuxuu u leexanaa meel baas oo aan la aqoon meel uu socdo waa marka runta la sheego Rashid wuxuu u sharaxnaa rikiska iyo kamuunka ama degmada Stockholm laakiin nasiib wanaag ama nasiib daro ma gelin Rashid beesha u rabnay taasna waxa waaye wax annaga gacanteena aan ku keeno runta marabta Soomaali haddii aan isku tagi lahayn haddaan dhihi lahayn Rashid waa nin siyaasadda wax badan ku soo jiray annagoon fiirin xisbi inkastoo xisbiga aan u qaadano annaga si qaldan aan u qaadano qofku markuu xisbi galaayo waa inuu wadnihiisa ay ka timaadaa ayadoo qofkii social ah bari waxa arkaysa asoo doorana qof mudaraad ah adduunyada kama dhacdo Soomaalida kaliya ka dhacdaa marka waxaan isleeyahay Rashid hadda 4 sano joogaya hadduu Ilaahay idmo 4 sano soo socoto yaysan dhicin wixii dhacay Soomaaliya waa iswada ognahay codkeeni wuxuu galay meelaan la aqoonin dhalinyaro Soomaaliyeed sharaxnay dad aan aamini karna inay wax noo qaban karaan sharaxnay laakiin qof walba wuxuu ku noqonaa qabiil aan la aqoon aan Soomaaliya uga soo tagnay oo la baabi'iyay marka Soomaalida waxaan rabaa inaan dhaho waa inaan ka gudubnaa waxa xun oo dib noo reebay waana inaan qaadanaa waxa fiican aan wadankan ka baranay xisbi hadaad ku jirto xisbiga waa inuu wadnahaaga noqdaa waa inaad ka tagin oo dhinac kale u leexan marka waxaan leeyahay walaashay Faadumo macsuur wiilasha ku jiro baarlamaanka oo dhan waxaan leeyahay aad u mahadsantiin horay u socda ma aha inaad dib u soo laabano gudoomiyaha rikiska adeer gudoomiyaha guurtida waligay ma maqlin Soomaaliland ka maqli jiray maanta way ugu cusub tahay marka waxa annaga inaan qaadano wixii fiican waa wax fiican marka waxaan leeyahay kulligiin waa mahadsantiin waxaan rabaa walaalkay Cawad Xirsi inaan dhaho asagana wuxuu ahaa ninkii haystay xaafadeena Isboonga Teenista waa sida Rashid oo kale waa nin Soomaali ah waa nin walaal ah waa nin Soomaalinimada jecel waxay ahaayeen labadan qof haddii isku tagi lahaayeen wax badan wada heli lahayn laakiin wax badan oo fiican la islama wada helo annagoo dhan hadaan u dhameen waa mahadsantiin salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh